فبالله كم تستطب الغرور ويبرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميلو بقات جوجتين وجبدي النصرة أما ولاشي النصرة أما صاحبتي النصرة أو إذا له ويلكم تو ماي يوتيوب channel. إذين وده مقال كلا عصب وآدي عدو حساب بدن أنت أنا مقالك جود الجلين waxaan rabaa inaan dhammaan dadkii igu cusub ilaa shay ilaa maanta waxaan ku dhahay subscribe ka saaraya almost 100 qof kor dhaafay inaan iraado waa mahadsantihiin taageertaankiin aad iyo aad ugu mahadsantihiin intii hore ila joogtana waxaan idin leeyahay ee janaalka koo igala soo bilowdane meeshiina fadhiyo waan idin baahanahay aan idin leeyahay intaas haddaan uga gudbo waxaa kaloo jira su-aal kaloo laigu wareeriyey nasro indhashareer ma bilowday indhashareer ma bilaabin banaanku ma isticmaalo laakiin maadaama aan ka cudur daartay inaan muuqaaladeeda oo wejiga la arkaayo aan maaragtay soo gudbiyo oo muuqaalo hore iigu jiray oo aad iyo aad u wanaagsanayna aan ka saaray saasaa youtube-kay ugu bilaabay inaan indhashareer isticmaalo soo markaa laakiin hadda ma isticmaalo you never know laakiin future-ka taasna waa arki doonaa waxaan u diin doonaa waqtiga iyo maaragtay adiga sida qaaska ii yaqaana haddaad igu aragto suuq anoo wareegayo indhashareer la-aanho waxaan ku dhahay iska adeeganahay dhihi nasr indhashareerka ay aaway taasna waa kaftan intaas markaa uga gudbo maanta waxaan rabaa laba nooc oo dadka ka mid ah muuqaalkayga waxaa maanta rabaa inaan diiradda ku saaro laba nooc oo dadka ka mid ah qeybna waxaan ku dhahay inaad baska saarto qeybta koowaad oo aad tidhaahdo weligeyba kuma aqoon jirin qeybna qalbigaaga aad usoo dhaweyso oo tiraahdo adiga waa kuu baahanahay ana waa ii baahan tahay sidaa ognahaba markaan bili-aadan nahay ama ogtihiinba markaan bili-aadan nahay waxaa jiro dad nagu hareereysan oo isugu jiro dad nala dhashay na dhalay dad anaga aan dooranay markii aan weynaanay aan maaragtay qof aad guursato kale ama nin ama naag iyo dad adiga u dooratay maaragtay saaxiibadaada nolosha inay noqdaan waa ka xumahay dad badan oo naga mid ah waxaa maaragtay aan dooranay ama ay doorteen dad qaldan taasoo markaas sababtay inay maaragtay dhibaatooyin badan oo ama maskixiyan ah ama yani jiritimiyan ah ay kasoo gaarto oo noloshooda xitaa dibdhac nolol ahaan xataa dibdhac ay ku samaysay haddii aan dadka koowaad oo aan rabay inaa baska saartid aan kuu soo qaato waxaa ka mid ah dadkaas noloshaada waxay ugu jiraan keliya inay adiga ku isticmaalaan inay maaragtay enerjigaaga waqtigaaga haddii aa financial aad ka fiicantahoo kale adi wax kasta oo advantage ay kaa qaadan karaan inay kaa qaataan laakiin ayaga aysan ku gelinin 1% enerjigooda ama waqtigooda inayna ku gelinin adiga marka noloshaada inay ku isticmaalaan bisay maaragtay ay kugu hareereysan yihiin maalinta lagaa waayo wax la isticmaalane weligaaba laguma aqoon jirinba laakiin adiga waxaa u haysataa inay ku dhow yihiin inay saaxiibada qaaska yihiin haddaad maaragtay xataa wada nooshihiin waxaa jira xitaa dad badanoo maanta wada nool oo laga yaabo maaragtay qof walba qofka kale qofaa laga yaabaa inuu daacad yahay maybe ina adiga daacad tahay oo aad noloshan qofkan ugu jirtid wax kasta qofkan xanuun dhibaato geeri nolol wax kasta qofkan inaad tiraahdo aniga waxaan kuula joogaa sabab la-aan sababtana waxaa waaye waxaa ii tahay qof aan wax walba oo wanaag oo fiican u rajeynayo laakiin waan ka xumahay markaad maanta adduunka meel walba platformka aad tagto dhalinyaro dad dhexe dad waaweyn cabaad waa dhammaaday qof kasta waa cabaadooyaa marka ani waxaa isweydiiyey ma dadka ayaana aqligooda isticmaalin oo ilaahay subxaana watacaala ilaa aqli qofka bili-aadanka ah ilaahay aqliguu siiyey maadaa aqligaaga isticmaalaynin oo indhahaaga aan wax arkaynin oo macnaha dooranooyo in noloshaas dadkaas aad juusgaraysatid oo ay saas kuu dhibaateeyaan mase dadka waxay haystaan awood oo qofkan ka badan
ay ku controli karaan. su-aasha haddaan runta kuu sheego waxaa waa adiga ayaa waxaa akhbaray dadka koowaad aan ku dhahayo oon raba inaad bas ka saarto. waxaad dadkaas markayga hore aad siisay furahaygii noloshaa gacanta ka saartay. maxaa yeelay xuduudaadii bini-aadanka wuxuu ka leeyahay xuduud. war cunuga aa dhashaa xuduudkaa leh. war naagay ninka aa qabtaa xuduudkaa leh. ninoo naagta aa qabtaa xuduudkaa leh. war qofka friendka aad tihiinoo friendshipnimada xuduud leh. adiga idhageysanayo ama dad badan oo naga mid ah especially dadkeena Soomaaliyeed maxay xuduud aysan dadka u kala lahayn oo aad marka qaar markaad waxyaabaha qaar aragtid ka qaar waxyaabaha ay ka cabanayaan inuu meeshaas qofka isla gaartiin waxaani aasan nasr ahaan u arkaa khalad. marka waxaan ku leeyahay dadkaas waa inaa horta bini-aadanka noocu daraba ha ahaadee waa inaa horta xuduud isaga samaysaa. xitaa qofka aan ku dhahayo dadka qalbigaaga dadka labaad positionka labaad dadka labaad aan ku dhahay qalbiga ugu soo dhaweey iyaga laftirkooda waa inay xuduudka leeyihiin. nolosha bini-aadanka markaa tahay qof nool waxa inaa lagu xushmeeyo jiritaankaa ka qayb qaato waa xuduuda. more ah xuduuda bini-aadanka aa ka leedahay aa lumiso sharaftaada iyo waxaan ku dhahay ixtiraamka lagu haayo iyo waxaa ku dhahay wanaaga uu lumaya. horta marka koowaad waxaan rabaa dadka positionada aan kala geeyey markaan kasoo tago noqo qof xuduud leh meel walba aad joogtid. inshallah waan ka hadli doonaa goobaha shaqada goobaha waxbarashada. markaa bini-aadan aad tahay horta oo nool xuduud sameyso aan lagu soo dhaafi karin si aa u badbaado. usoo noqdo marka dadka koowaad marka waxyaabaha ku garan karta waa general oo wada ognahay. qofkan adiga enerjigaaga waqtigaaga markuu kuu baahdo heegana u tahay. laakiin asiga maalintaa tiraahdo waa kuu baahanahay kaali iisoo istaag ama waxbaa iyo si ah laba luuq oo ka booday uma yaqaano wax uu kugu darsanayo ma lahan. adi ma dareentid laakiin marka wanaag aa samaysid ama horumar aa samaysid ma kugu dhiirageliyo maku dhaho waxaan aa samayso wax fiican hore u wad. marka yacni ma ahan qof oo waxaa dhibaysaba inuu ku dhaho waxa aa sameynayso waa wax wanaagsan. maxaa yeele waxa bini-aadanka yacni hadallada qaarkood qalbiga ka imaadaan maogtihiin. hadallada qaarkood afka way adagtahay inay soo marto. marka qofkaas waxaan rabaa dadkaas haddii noloshaada ku jiraan anoo og inay adag tahay inaad bye tiraahdo haddana waa inaad baska saartaa oo aad tiraahdaa bye. haddii aad dhihi waysid laakiin dhibaatada ay kugu reebayaan maxaa kamid a mataqaanaa. haddii aad dhihi waysid dadkaas noloshaada ugu jira keliya reason iyo inay ku isticmaalaan waxa kugu dhacayo. number 1 horta waxaa kaa xiran wadada ah inaad dad wanaagsan noloshaada ay soo galaan. maxaa yeele dad wanaagsan kusoo daba dugaalaan. haddaad qof xun aa ku daba xiran tahay oo maaragtay xag diin ama xag akhlaaq ama xag adaab ka dhintay oo adiga noloshaada keliya maaragtay inuu ku isticmaalo kugu jiro dad wanaagsan horta waxaan ku dhahay waad kala baxdeen. marka laga reebo dad walaalaha oo laga yaabo wayan ayagana way kaa dhuudhuumanayaan. taas horta waa effective koowaad uun kugu sii maskaxdaada ma kordhayso. waxaa laga yaabaa dadka qaar 10 sano inaad taqaanay meeshay joogaanay joogo wax iska bedele ma lahan. maxaa ku sabay ma taqaanaa anoo warka realityga macaawada rabay inaa maarag dad badan aan baraarujiyo. waxaa laga yaabaa gabadhu hadday gabar la qabo tahay guurkeeda inuu meeshii u taagan yahay ay waxba iska bedelin oo noloshii waxaan ku dhahay isbedel buu imaanayninba. isbedelku ma aha dadka inay lacag yeeshaan dadku inay awlaad fara badan dhalaan. jaceylka laftirkiisa in zaa'id la isku jeclaado xataa isbedel maxaa keeni karo waa inaa qof aa haysatid yacni reason la-aan kula joogo oo noloshaada u diyaarsan wax kasta oo kugu soo saa'ido inuu isku dhigo. saaxiibtinimada waa inay laftirkeeda isbedel ee dheeraataa. dadka qaar ma arkin saaxiibtinimadooda ma dhaafta haye heblaayo soo baxa waxaa waaye diricaaga soo qaadee aroos hebel aan aadno meel hebel aan kasoo casheyno aan isla soo wareegno ma dhaafto. maxaa keenaayo maxaa yeele saaxiibtinimadooda bug waxay saaxiib ku yihiin keliya inay is-use garayaan bas
laakiin saaxiibkuma in is hormariyaan inay diin isku waaniyaan inay waxaan ku dhahay wanaag iskala shaqeeyaan haddii qofka uu noloshaada ugu jiro maaragtay sabab kaliya ah inuu adiga wax kaa faa'iido waxba kama gelin marka indhihiin intaa furtiin ama wiil ah ama gabar ah oo videoga ku soo gaaro dadka noloshaada ku jiro buug iyo qalin u qaado meel fariiso xisaabtan meeqa mara qofkaas intaad wacday aad wax weydiisatay oo laga yaabo inuu kugu dhageysto waa calaamadaha guduudan oo bixinaya signaalada lagu siinayo maskaxda ay dirayso laakiin waxaas oo dhan ma dhageysatid maskaxdeena ma dhageysano qalbigeena ma dhageysano dareemaheena ma dhageysano marka waxaas oo dhan oo maaragtay aan iska dhaga tirno marka maskaxda markay maanta qalbigaaga ku dhaw dareen xun qof dadka qaar marka la kulanto ma arkin oo si xun aad dareemaysaa iska dhaafaa is leedahay waxaa arkaysaa wuu sii weynaa oo aakhirka maray too late ah ogaanaysaa marka dadkaas baska saarcawada waxaad tiraahdaa ani adig intaana kala gaartee la kala wada dheh waa haddii aad rabto inaad badbaadid dadka labaad oo aad raba inaad qalbigaaga usoo dhaweysid oo aan raba inaad si gooni ah u teegarayso oo aan raba maaragtay inaad sanad walba waxaan ku iri ubax hadiyooyinka waxaan ku dhahay ma aan materiaalka ma aan hadiyada horta macnaha waxay ka mid tahay waxyaabaha bini'aadanka macnaha oo aadka u wanaagsan hadiyadu ma inay qaali tahay maanta qofka hal ubax oo laga yaabo $5 inuu joogo ama adiga xataa ubax intaad soo goyso aad maaragtay warqadda magacaaga ku qorto aad qof saaxiibo tihiin ama qof macrifo aad tihiin aad siiso ama partnerkaaga oo kale xataa aad u sameyso waxyaabaha waxay ka mid tahay jaceylka iyo wanaagga iyo qofka dareenkiisa kordhiyay ka mid tahay dadkaas marka aan rabo waxaan rabaa inaad mar walba il gooni ah ku fiirisid waa dadka waxaan ku dhahay maanta mar kasto wanaag ku rajeeyo maaha inay lacag haystaan laakiin qalbi ahaan kuu jecel maanta haddaa arrin u geysato arrintaada intay fariistaan wuxuu haya dhigaa okay ku dhageysanayo at least xitaa ku dhageysanayo ku dhahaayo waxaa si casma kugu dhacahaa u haya timeka as uu awood u leh inuu time ku siiyo iskabaday hadduu financial haysto iskabaday inuu meel yacni qof dadkaas waxaan rabaa inaad il gooniya hadday walaalaha yihiin hadday saaxiibadaa yihiin dadkaas waxaan rabaa inaad soo dhaweysato oo aad tiraahdo dadkan waa dadkayga ninkii oo maaragtay nin ina aragteen ma ogeeye xeetaan oo waylo afrikaan ah wuxuu dhahay dadka qaar wuxuu dhahay markaa aragtid waxaad dareentaa farxad qalbigaaga dhageyso qalbiga iyo dareenkaaga been kuma sheegayo laakiin dadka qaar waxaa waaye waxaa laga yaabaa markaad maaragtay kula joogaan inaadan dareemeyninba maaragtay reyn inaadan dareemeynin inaad farxad dareemeynin inaad is ilaalinayso you know sababaa jirto laakiin sababtaas dhan adiga waa iska dhigatiroysaa marka dadkaas position dadkaas waxaan ku dhahay qalbigaaga dhageyso dareenkaaga dhageyso baska saar dadkan waxaan ku dhahay noloshaada wax kasta kuu rajeynayo maanta markaad tiraahdo saani wax iga yihiin maanta waxaan ku dhahay ku dareemayo markaad arrin ula tagto markay kula joogaan aadan ku caajiseynin markay kula joogaan waxaan ku dhahay maanta haddaad xabad rooti ah haysato waxa kun intaa kala jabsatiin farxad aad ku cunaysiin aadan stress dareemeynin dadkaas soo dhaweyso marka labadaas dad ee aan cawada kuu soo qaatay dadka koowaad baska saar ma taqaanid hadda wixii laga bilaabo markuu kliibkan dhammaado dadkaas ma taqaanid dadka labaad ee waxaan ku dhahay mar kasta kuu taagan mar walba waxaan ku dhahay noloshaada wanaag kula jecel ixtiraamka waxaan ku dhahay kugu waaniyo wanaagga markaad wax horumar aad sameysa rabta gadaal waxaan ku dhahay saskaaga kuu soo riixo ku yiraahdo horey u soco ku dhaho dadkaasna waxaan rabaa inaad qalbigaaga usoo dhaweyso noocay doonanba ha ahaadaan saaxiibkaagu noqon karaa haddaad gabar tahay odagaagu noqon karaa haddaad wiil tahay xaaskaagii noqon kartaa hooyadaagii noqon kartaa ilmahaagii noqon karaan aabbahaagu noqon karaa ogowna u fiirsa xataa waalidka qofka mar kasta waxaan ku dhahay saas ku dabo waalidka xataa u fiirso ilmaha waxaa arkaysaa ilmo waalidka qaar aad u jecel
ama habar ha ahaato ama eeda ha ahaato ama hooyo ha ahaado ama aabba ha ahaado waalidka qaarne iska ilaalinayo maxaa keenayo sababaa jirto marka adiga buugii qalin qaado cawada homeworkaaga waxaa waaye inaad dadkaas jaranjarada koobaad kuu saaran oo dhan aad ka tilaabsato oo jaranjarada aad lugahaaga intaad geysid dadkaas kale intaad habsiiso aad tiraahdo adigaa waxa ah dadkayga oo markaan idaada arko waxaan ku dhaha farxad qalbigayga indhahayga waxaan ku dhaha nal u daaraa aad soo dhaweysatid waa haddii aad rabto inaad maaragtay noloshaadu ay marwalba isbedesho oo aadan maaragtay joogin positionka ah 5 years 10 sano ka hor 2 sano ka hor believe or not 1 sano ka hor xataa meeshaan joogo maanta ma joogo insha allah haddana waxaa sii rajeynayaa maaragtay wanaag badan iyo maaragtay waxyaabo fara badan aan sii rajeynaya hadduu ilaahay yiraahdo marka dadaal waxa dib kuu dhigaayo noocay doonaanba ha ahaadaane dadkana ha ugu badnaadaane waxaan ku leeyahay meeshooda ku jooji meel walbaa joogtiin waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin hadda waxaa ku dhahay motivationkii iyo waxaa ku dhahay mawduucyada insha allah waan soo badin doonaa adigana waxaa leedahay arkahe like-tiina waxaa ku dhahay share-tiina iyo subscribe-kiina saan hore idinku soo sheegaba insha allah waxaa ku dhahay igu taageera السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت ساركي دونو وحاين الله هاي انتان مرضا اسمقلي دونو وحاين الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.